ولي ترتكي ونص عنايا قفك حقا عبد العزيز آدم محمد مورالي صعب يقول الصلوية مقدس اسجود قالنتي waxaan soo dhaweynaa dhammaan tartamayaasha ila mid ah iyo guddiga sharafta leh magaceyguna Cabdi Casiis waxaan ku tartamayaa heesta shay mara dacar muxuu nabarka caashiqo muxuu nabarka caashiqo igeystina badanayaho muxuu nabarka عبد العزيز هدي عاد أركتين مركن يا إدي صورة سرية برا جدي صدبوا مصلحة كصدبوا أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام كدب مجيء وسرية برا جدي وحن كيما دقمة هذا وحن كترتمه هستي أحمد على العقال أو ده مواي قدر على بعض
dhasho dhagaha fidiyo ka dharqaday xareedo dharabtii ku yaalba mawaago dhalayba ma dhibicseer ma weyda ma dhalaan la jecelya maxalayo wax dhasho dhagaha fidiyo ka dharqaday xareedo dharabtii ku yaalba sida dhoolka gugao dhudhubiya kayma dhowr beri ku horo dhirtii wada magoosho saci wada dhalaalay sida dhoolka gugao dhudhubiya kayma dhowr beri ku horo dhirtii wada magoosho saci wada dhalaalay rahufi dhawaaqo rob la dhaco dhexnaaxo balaleedo hadbadheena isku kala dhigaysa qalbiga ugu dhigante waayahay weli tartanka inoo soconaya xiisaha uu tartanka leeyahay waxaan isri ma ku dhex dhuumataa oda laftarkaaga halxab ma ka tuurataa balse qaybaha dambaan ka dhigan doonaa ee tartamayaasha ayaa weli halkaa igu sugayo kuwaasoo leh hadba goormaan maslaxa fuulaya dadku qaar way iska dhoola caddaynayaan qaarna nasiibkooda iyo farxaddooda ayay rajayn doonaan guul wacanaa dhammaantiin idin leeyahay inkastoo weli tartanka uu soconaya haddii aad sareeya aragteen markan waxaan soo qabanayaa raxmo aadan ibraahim sacab igula soo dhaweeya raxme soo dhawow maslaxa ku soo dhawow بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وان سلام يا كديدا انتي كسو قيب كشي برنامجك وحان كنت ترتميا هيسا قاد نمعة جامع هيستا بورها بورتايا بورها ودير بورتايا بورها ودير هدان اقول قرى وبحو وبرورتي قايلة ديرو باهي ذا إذا بلوبا nasiib wacan ayaan leeyahay tartamaha xiga ayaan u yirayaa inkastoo la isoo fiirinayo haddii ay dhici lahayd inaan codka idin siiyo dhammaantiin waad gudubteen aan idin dhihi lahaa balse nasiibka guddiga laga sugayaa dhammaadka
ولي وسعني ترتكنا مركب وحن سوق قبنا نجيب عبد الله عبدي سولو مصلحة كسلو نجيب السلام عليكم دمانتي وين سلامي مركي حيجي مقعي وحوي نجيب عبد الله عبدي يا السلام عليكم دمانتي وين سلامي مقعي وحوي نجيب عبد الله عبدي وحن روينا كترتمي هستي داود حن فراو قاضي دولك هو يدي وان جعلها dhaqashadiisii ruuxiyo naftaydii qalbiga waa ku dheeryahay sidii ubad aan dhalay oo kalaan dhabu jeclaystay barwaaqada dhaxtaaliyo nimcada waan ku dheelay dhulka hooyaday waan jeclahay dhaqashadiisii ruuxiyo naftaydii qalbiga waa ku dheeryahay sidii ubad aan dhalay oo kalaan dhabu jeclaystay barwaaqada dhaxtaaliyo nimcada waan ku dheelay dhammaan dunida lagu nool yuhuu qiima dheer yahay dhaxan barafa iyo laguma oga dhamac kulaylkeedii rabbi baa isugu dheeli tiray cimila dheefteedii kayihii jaleeca mar qura kama dhargaayaane dhammaan dunida lagu nool yuhuu qiima dheer yahay dhaxan barafa iyo laguma oga dhamac kulaylkeedii rabbi baa isugu dheeli tiray cimila dheefteedii kayihii jaleeca mar qura kama dhargaayaane duniga cuntada laga helan shayna loo dhidine dhalxan barafaadha iyo karuurdhayda iyo jirka dhirta xabagta laga soo guriyo miraha dhuumanta nin dhadhamiyey kuma dhowrsan karo dhowrta dibadeedii duniga cuntada laga helan shayna loo dhidine dhaxan barafaadha iyo karuurdhayladiyo jirka dhirta xabagta laga soo guriyo miraha dhuumanta nin dhadhamiyey kuma dhowrsan karo dhowrta dibadeedii tartamaha xigo markan maslaxa aan soo saaro منى حسن يوسف منى حبيبي سدو صعب يقول سدوي وادوا magacayga waa منى حسن يوسف waxa ka imaada degmada hodan waxa ku tartamaya Faadimo Qaasin Lulu Habiibi xidigeygi yaa tahay xareedii tade xabtii xamar adiga
santaa nasiib waxaan ku leeyahay qofka kale ee xigaan u wacaya markan masna jaamac maxamed masna soo dhawow sacab igula soo dhaweeya ahee السلام عليكم magacaygu waa masna jaamac waxaan ka soo gudbay tartankii wareegii koobaad مقرب كدوبا يا مقرب كدوبا هاي كدوبا وين حضره الله waxaan ku tartamayaa heesta Saara Axmed القافيو 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 جعل با nasiib waxaan ayaan ku leeyahay masna markana waxaan u wacayaa oo soo saaraya maslaxa ilaa una mooti xaaba heeba axmed xaaba soo dhawow ahee waata inta dheer weeyaan soo dhawow okay assalaamu calaykum wa salaamay magacaygu waa xaawo heeba axmed oo degmada Kaaraan waxaan ku tartamayaa heerta fartuun birimo nafku jacayl adduunyada yaa u wacaa wax nololo nabad
lala wadaago nimca lagu lahawaare nafku jacayl adduunyada yaa u wacan wax nololo nabad lala wadaago nimca lagu lahawaare manoglee kalgacalba naariyo ka dara nolol markuu nudayga ka galo nabar weeye halise manoglee kalgacalba naariyo ka dara nolol markuu nudayga ka galo nabar weeye halise eedaan nafsiga geli oo soo noqnoqoshada hayga moodin nacasnimo eedaan nafsiga geli oo soo noqnoqoshada hayga moodin nacasnimo anna haddii aan ku naawilay naqba waa la dhowraa nasiibku haygu kaasime anna haddii aan ku naawilay naqba waa la dhowraa nasiibku haygu kaasime waxaan rabaa inaan hadal kale kasoo jeediyo meeshaan markii hore tartanka koowaad aan kasoo qayb galay 2 cod baan helay sidaasay tahay haddii maya la dhihi lahayn shalay waa cabsana waa baqanay laakiin maanta anigoo dhiiran baa imaaday qof walba oo tartanka igula jiro waxaa uu sheegayaa haddii maya la taas micnaheeda maahan in la neceb yahay ama se oo qofka la waxaysmaayo ee waa inuu soo dadaalaa oo meelaha ka qalda asaga isku soo saxaadi يا سلام aad bay umaasan tahay tartamahaasi kalsoonida quruxda badan ay ku hadashay nasiib wacan ayaan leeyahay xaawa waxaan soo qabanayaa markaan leeyahay maslaxan soo saaraya ka wada yaali la yaabina deeqa xasan cabdi soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مركلي وان دواهي waxaa ku tartamaya hees ay qaada Aamina Feer magacayga deeqa xasan cabdi degmada Cabdicasiis ayaan turkaan kusoo gaaray waxaan ku tartamaya hees Aamina Feer qaada nafsi ruuxi gaasha godolkiisa maali sidaan anigu ku galay gafiimaya sidadiigu nafsi ruuxi gaasha godolkiisa maali sidaan anigu ku galay gafiimaya sidadiigu arkadashadeeduna gari lahay hayga goosan caawade iga gacan sarrayse
tahay isku soo noqod wanaagsan goordhow guddiga maslaxa soo saari doonaa inkastoo waqti ay ku soo lumiyeen qaabkii marka loo kala bixi lahaa haddii wareegii labaad sidaanba loogu murmo meel gadaala la tegay ka saddexaad iyo afraad waa uu ka duwan yahay waxa ay markaasi qayb ka tahay in tartankan xamaasad uu leeyahay dad markaa codod macaan halkan ay yimaadeen lagu mashquulo xataa way ogolaaway inkastoo aan jeclaa inaan sir yar kaga soo qaado guuleed naga yara fogow marka waxaan soo dhaweynayaa wadajir saddexdooda aan maslaxa jeclaa inaan ku soo dhaweeyo abwaan cabdirasaaq axmed geedi aaqiro sacab فنان سري شمالي أحمد شمالي أديك الله وحن لها أهي الفنان يوسف محمود محمد حيبرو صعب إبرو اليوسف سود هذا وحن وذا سكنا أنيقا يترتمياش وحي تاي نتيجة ده عدي صوب حدي عدة هارتي أنت تقول ستقول بان لا هاي أنت كلاتنا وقتي كلاك بدن أدبدو ما سنتين واضح ترتمياش يدعو تضبط دمان waan idin salaamaynaa haddaanu guddigiinahay wax badan baanu fadhinay horta dee iminka anagoo taagan aan is aragno waaya waa laysu taagay go-aankan weeyaan iminka wareeggii hore wuxuu kaga duwan yahay 5 maalmood baa tababar loo waday tartamayaashan in hor fadhiya 5 maalmood ayaa tababar loo waday oo weliba uu waday dee yuusuf xaybaro oo tartamada ama fanka dee tababar sare ku soo qaatayoo tartankii hargeysa ka dhacay 2014 dee ku soo baxay isla markaana ay soo tababareen sidan idinka laydiin tababarayay uu idiin tababarayay ay u soo tababareen fanaaniin fanka dee magac ku leh waayo aragna u ah sida khadra daahir cige maxamed maxamuud cige busi aabi miro dacar ruun xaddi saban iyo abwaan weersame ayaa soo tababaray dabadeedna waa kaa tababarkii la siiyey ka muuqda iyo horumarkii iyo dadaalkii galay waa kaa soo saaree maanta dee idinkii idinsii tababaraya idinkana dee waxaa muuqataa in badan way ka muuqataa tababarkii 5 casho la siinayay in aanay wax badan ka dheefin misalan teembadoo kale waa waxa ugu muhiimsan inuu la qabsado teembada tababaradu iyo toonka in badan oo idinka midoo hadda muuqatay dee tababarkii la siiyey teembadii kumay horumarkii la doonayay kamay gaadhin toonkii horumarkii la doonayay kamay gaadhin markaynu sidaa leenahay ugama jeedno dee kala jeclaysan mayno laakiin fankan ama hibadan heesidu waxay u baahan tahay ridmadan ama jaanta in lala qabsaday u baahan tahay waxay u baahan tahay toonkan codkan soconaya inaanad ka bixinoo marba meel kala gelin bay u baahan tahay waxay u baahan tahay codka aad la soo shir tagtay qudhiisii dee in la arko tayadiisii iyo macaankiisii iyo dhadhankiisii iyo xiisihiisa in la dareemaa loo baahan yahay hab masraxi baa sidoo kale isna meeshii muuqda oo loo baahan yahay hab masraxina qofku la yimaado qurux badan oo loo bogi karo waa hagaag muna xasan yuusuf waa hagaag saddexdaasiba waxay u gudbeen wareegga saddexaad halkaasaa laga sii wadaya waxaan ku wareejinayaa tababarihii wareeggan idinsoo tababaray yuusuf xaybaro aad buu mahadsan yahay abwaan cabdirasaaq axmed geedi aakhiro runtii waxaa farxad ii ah oon jeclahay inaan xasuusiyo dad badan oo tartanka la socday tartanka heesaha hibada jiilka cusub iyo muqdisho Got Talent oo aanu hadda bilownay oo wareegiisa labaad maanta lagu jiro waxaan jeclahay inaan dib u xasuusiyo cabdirasaaq axmed geedi aakhiro macalinkaygii iskoolkaynu ahaa runtii farxad bay tahay inaan maanta halkan anigoo guddi aan wada joogno iyo xusida uu xusay tartankan ka soo qayb galay dhalinyarada dhamaantood waan u mahad celinayaa juhdi iyo dadaal badan bay soo bixiyeen 5 maalmood baan halka isku arkaynay 5 maalmood kala faa'iideysi ay halkan u yimaanayeen inay wax ka faa'iideystaan tababaradii la siiyay inta aan sida wanaagsan uga faa'iideysani waxaan leeyahay niyad jabina tartamadu sidan bay u socon doonaan qaar tartankii hore heesaha ay hibada jiilka cusub ka soo qayb galay baa tartankan dib isaga diiwaan galiyay oo runtii dib u soo noqday hankoodiin runtii aanu jabinin idinkana waxaan jeclahay intiina maanta hadhi doonta kamaydaan hadhay fankii Soomaaliyeed laakiin tartankan inaydan wareegga u gudubtaan baad ka hadhayna haniya jabina tartamaha afraad ee u gudbay wareegga saddexaad ayaan jeclahay inaan magaciisa sheego ma gabadh baa mise waa wiil sareeyo barageedi wareegga saddexaad ayuu u gudbay
sarreey waa hambalyo ayaan ku leeyahay saddexdii qof iga horreeyay abwaanku uu xaadiriyeyna hambalyaan leeyahay tartamaha shanaad ee 7 qof soo gelaya ayaa ah masna jaamac maxamed hambalyo waa mahadsantihiin macalinkaygii kale oo garab taagan ayaa labada qof kala sheegaya hadal dardaaranana runtiina fari doona shimaali axmed shimaali soo dhowo macalin thank you horta janiska waa laga faa'iidaystaa waaya cabdirasaaq axmed geede ani adigii waa yar ma noo baryin yaa inkastood adigu daada diidid ani daada waan ogolahay alxamdulilah yaa bal waxaan doonayaa 88 heeskii aad ii dhiibtay dumaashiday inaan wax yar ka xasuusiyo iyo caruurtii oo waaweynaadeen cabdishimaali oo uu heesaya waa si wanaagsan wuxuu ii dhiibay 88kii heesaha night clubka curuba ayaan ku tumi jirnay ilaahay nooma celiyo geel 2 jir soo wada mar فهمت هذا last warning of God أتمد عرّا تمد مركا وعوي لبض لنا نعكر إن الله بتوعي مركا سميرة سميرة يا سميرة 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 هدي سمت قرح جرتو أدمي قال سيهيبو هذا سامي هلو وحيجه انتاس ما شاء الله دماشدي هدي داون يسو inaan hilmaamin سميرة ديك heestii Samiira Dheeg Maxamed oo ku qaaday 88kii Shibaali wali inuu kula jiro okay thank you tartamayaasha kale kuwii abaan aakhiro uu sheegay iyo kuwii haybaro uu sheegay waa hambalyaynayaa inta inaan ka bixinin waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo tiimkii nala shaqeynayay Balambaalis Studio iyo tiimkii idaacadda wadnaha FM oo ugu horeeyay saaxiibkay walaalkay Gooleed Sabriya Afrax aad buu maasan yahay runtii inoo daadihinayay tartankan waa maasantii aad baad u maasan tahay Yuusuf Xeebar iyo waliba gudigeena sharafta lahaa natiijada iyo sidii markaa ku dhamaatay waan markaa wada arkaynay balse waxaan jeclahay tartamayaashii 7 ay u soo gudbay wareegga semifinalka inkastoo qaybta wareegga labaad ee qayb kale ay sii harsan tahay inaan si wada jira maslaxa u soo dhigay 7diiba hal mar soo wada istaaga maslaxa ku soo dhawaada sidaan hore kugu sheegay 7dii waa kuwana tartanka ka horeeyay wiilasha aad ugu badnaa laakiin halka waxay kaga muuqanaysaa gabdhihii markan inay soo kaba kashteen leeyihiin anaga weeyaan xaaladu 2 wiil ilaa iyo 5 gabdhood wareegga saddexaad ee semifinalka ayaa noo madalaya nasiibkiina qaybta xigta ee barnaamijka waa daawa doontaan anigoo Gooleed Sabriye iyo tartamayaashii soo baxay semifinalka waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin nabadgelyo Thank you.